maxaa kugu soo dhacaya marka aad maqasho maqaarka xoolaha ama ganacsiga haragga xoolaad maxaad se kala socotaa xoolaha waxa ay ka mid yihiin ilaha dhaqaale ee wadankeena dad badan ayayna noloshoodu ku tiirsan tahay ariga lo'da iyo geela waa kuwa ugu badan oo ay Soomaalidu dhaqato waxaana laga helaa nacfi caano iyo hilib ah balse waxaa jira faa'iido kale oo laga helo haraggooda warbaahinta ganacsiga iyo dhaqaalaha ka hadasha ee gal ganacsi ayaa booqatay mid ka mid ah warshadaha yaryar ee lagu diyaariyo haragga xoolaha ee loo dhoofiyo wadamada dibadda ah qaarkood ee ku yaala Muqdisho Cabduqaadir Cabdi Cusable Joodax waxa uu in muddo ah ka shaqeynayay warshad lagu diyaariyo haragga xoolaha ee dibadda loo dhoofiyo waxa uu nooga warramay heerarka ay mariyaan haragga xoolaha ka hor inta aan la gaarin marxaladda dhoofinta geela waa la keenayaa cusba la marnayaa waa la qalajinayaa markii la qalajiyo yaa waxa loo dhiibay Dubai looda waa la keenayaa lama cusbeeyo ay sida dhulka loo dhigayaa waa la qalajinayaa markii la qalajiyo waa la xirayaa waxa loo qaadayaa gobolada shan Afrikada dhac sideeda ayaa loo cunaa baba la cunaa kaas sida hilibka ma arkino la shiila jarjar la shiilo odgac laga dhigaa odgacaas loo cunaa ariga maqaarka oo ari cadka asiga waa la keenaa waa la cusbayaa suna la marnayaa asigoo qoyaana oo sidiisa ayaa waxa la saaraa markabka kaas asigana waxa la geeyaa Dubai la geeyaa Dubai laga sii qaadaa waxa la geeyaa meelahaas ma jira isbedel dhanka qiimaha haragga lagu iibsado ah mase jiraan waxyaabo laga sameeyo haragga ay dalka dibadiisa u dhoofiyaan oo dib loogu iibkeeno gudaha Soomaaliya ariga marka hore waxa ahaa jiray $2 $1 bar oo ahaa jiray maanta waxa waaye 3 senti 2 senti ayaa la kala siistaa maadaama xilliga hore dhoofkiisa oo la rabay oo la jeclay hadda qof rabta male kuriyo iska yaala meel walba maqasinta buuxday macnaha waxyaalaha laga sameeyo jira qayb laga sameeyo waa jirtaa qaybna waxa laga soo sameeyaa jaakadaha iyo dharka laga soo sameeyaa qayb waxa laga sameeyaa suumanka oo dadku xirtaan qaybta arigana waxa laga sameeyaa lacagta oo dollarka Mareykanka la geeyay kaas asiga qafiif waaye kaas warshada la gelinaya waxa laga soo saaraa lacagta halkan aan ku sugannahay waa mid ka mid ah warshadaha sida kumeel gaarka ah loogu diyaariyo maqaarka laga dhoofinayo gudaha dalkeena Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar warbaahinta gal ganacsi Muqdisho